ninkii lagu magacaabi jiray Tewodros oo dabcan isagu ka mid ahaa raggii boqorrada isku sheegay ee soo maray xukunka Ethiopia isla markaasina sanooyin badan halkaasi ka soo arriminayay. Tewodros waxa uu ahaa nin ku caanbaxay dilka iyo daadinta dhiigga muslimiinta isla markaasina dhibaatadii ugu badnayd abid inta la og yahay waxa laga qoray u geystay dadka muslimiinta ee ku nool waddanka Ethiopia gaar ahaanna Oromada iyo weliba maaragtay ummadihii kale ee iyagu markaasi muslimiinta ahaa ee xukunka Ethiopia markaasi ku hoos jiray. Tewodros ninkan lagu magacaabo ma soo dhowaanin xilli aad u horreysay oo intii maaragtay Soomaalidu aysan ka midka noqonin ama aan lagu wareejin Ethiopia aad u fog buu soo xukumayay 1855 ilaa 1868 ayuu dabcan talada waddanka Ethiopia hayay sida la sheego. ninkan waxaa lagu xasuustaa baa la yidhi in hal maalin keliya uu dilay 1000 qof oo uu weliba gacmaha iyo maaragtay xubno kale oo muhiima ka jaray. ninkii noocaas ahaa nooca ula dhaqmayay dadkaasi oo weliba lagu sheegay inay ahaayeen dadka muslimiinta ee Oromada ka soo jeeda in axmaara maanta ay taaladan hadda wejigeena ka muuqata ama shaashada saaran intay u dhisto ay sidaa ugu soo shamuumto oo maaragtay ay weynayso maxay ka dhigan tahay nurow waa runtaa marka la fiiriyo yacni tacadiyada uu qofkaasi geysanayay ma ahan keligii kuwii kale ayaa ka daraa marka la fiiriyo yacni dadka hal maalin aha la yidhi waa dhacdo yacni goob gaara ka dhacday ee ma aha dhacdo maxaan ku idhahdaa maalinkaas iyadu in 1000 qof inta la soo aruuriyey yacni maxaan ku indhihiina lagala baxay maaragtay gacmihiina laga jaray kadibna iyagoo gacmana indhanaha indhihiina laga bixiyey oo waxna iska qaban karin waxna iska arki karin la orday guriyihii miyaada waa dhacdo ka dhacday mid ka mid ah goobihii tacadiyada uu ka geysanayay ee maalinka horta ma ahayn yacni wax aan ku koobnaa 1000kaas qof Tewodros sidaas sheegtayba 1850kii ayuu maxaan ku idhahdaa hoggaankiisu bilowday 60kii ama dabayaaqada sanadii 1960kiina ama 60 iyo aduu dabayaaqada 60kiina meesha uu ka baxay wuxuu ka mid ahaa dambiilayaashii waaweynaa ee ku dhowaad yacni malaayiinta qof sida dulmiga iyo xaqdarrada ah u dilay dadkaasi waxaa ugu badnaa tirada ugu badan ahaa dadka Oromada la yidhaahdo oo xilligaa magac kale ay u yaqaaneen Allah oo kale waxay ahaayeen dad muslimiina 100% Oromadu waa marka lagu khasbayo dad badan oo Oromo ah in diintoodii ay si khasaba ku bedelaan